ma gelin weligii qof xataa ma daqrin waxa ku aarsaday qofka markuu Yurub qof keeno asaga u dulaysan yahay 3 sano haduu ka tago sharciga ayuu sharciga ka xigta ani aan ku fahmay sharciga ka xigta sharciga ayaa ka cistay sharciga laambad ku dhigtay ani sharciga waa ka cistay ana taas u fahmay okay taas fahmay xaga dhig wata ka wada hadlaantaas xitaa odayaasha habelkii wato hada ku soo diiday isaga oo intaad u dirtay oo arinta maslaxa la galay oo isaga diiday waa inay ogaataa hadda waxaan rabaa inaan ogaado xalay waxaan arkay boorsooyinkii oo ku qabayso wadada fadhigay waan ka tagayaa sirtii ka tagay xaga u socotaa xaga aadisa daahiro ani magaaladan markii horeba waa rabay inaan ka tago oon ka guuro waa ku dhibaatooday dad xun ah degan ilmaha maliga caawin jirin ehel ma ku haysanin sababta asaga imaashihiisa ugu farxana taasay ahayd hadda xaga u socotaa marka miyaa ku qasbayo ku dhahay ka tag fadhigaagi aboowa fiiri meesha haddaa ku dhibtoota waa laga haajiraa aboowa meesha ku dhibtoota ma joogi kartid dadka dhanbaan baa wax fahamsanayn waxbaan rabaa inaan fahamsiiyo gabadha waxay leedahay fadhigayga waa ka tegey jiifkayga waa ka tegey wax walba waa kaasaa gurigii aan jeclaa waxaan ka tegey aniga waa ka guurayaa gurigan sababtoo ah horta meeshii marka hore waa ku dhibtooday inaan ka guuraa rabay habeen waxaa jirtay 17 May life la googooyay oo aan leeyahay rootiya cuna xataa ma haysanin oon oynayo lifekaas inuu duubtay in dad u duubaan u direen ma aqaani subaxeedii wuu ii soo diray wuxuu igu dhahay godaa ku dhacday waa waalatay cunugayga ayaan ka badbaadsanayaa subaxeedii waaye habeenka aan live ka duubay isla subaxeedii oo isoo wacay xaalad adaga ku jiray wuxuu igu dhahay aqbal noloshan waa ku qasban tahay wax walba way dhamaadeen aqbal waa xanuunsatay aniga Norway waa ka tagi lahaa laakiin kama tagi karo adoo xaaladan ku sugan cunugayga aniga gaala ma rabi inay iga qaadato anaa aabihiisa ani igu soo wareeji adigana wadankan iskaga tag daawo raadso oo quraan raadso wadankan iskaga bax ani marka waa u qaadan waayay qofkii shalay ani noloshayda baabi'iyay inuu maanta haddana u taagan yahay inuu haddana wiilkayga iga qaato aniga qof baasaboor weyn lahaa ahay wax lacaga xilligaas maana haysan gabar Mareykan joogta iyo dad kale aniga ila dhashay ay garab isiiyay wadanba ilaa wadan tigida la ii gooyay ilmahaygi wadanka waan ka saaray isla habeenkii waa baxay meel nabada aan geystay ilmahaygi soo gurigan ani keligay ma joogi karo waa cidlo uun igu weyn yahay waana qaali soo marka si aan meel ka duwan u tago oo aan u shaqaysto ilmahaygina aan lugahayga ku istaago oo maalin aan soo alxamdulillah hadda waxa ka masuul ku jooga qabo alxamdulillah ilaahay ma hadda iskale waxaan ka fahmay waa sax waxyaabaha la isku dacwooyay xitaa hadda xalasha sameeynaysa xogaa ma fiicnayn ruuti moosaas wax fiidiyosh soo gato fiidiyosh qatarta oo u dhigay ciyaalkeed gaajaysiisay oo sharciga dawladda diiday waxaas nidaamka dastuuriga ay carruurta noori noogta carruurta heerka joogan ilmihi hadda waxaa leedahay waa qaaday meel fiican ay joogan waa safe sax ilmihayga safe waay alxamdulillah okay waxaa kan leedahay gurigan way ugu weyn yahay way ugu qaali dib kale hadda ku haysto ma jiro ilmihi maadaama meel fiican geysto oo aan ahayn Norway haddana guri waxaa raadsanaysaa aad degto soo hesha ama raadsanaysaa oo ku noolaato si aad u shaqaysato sax okay ninkii adaa keentay sharciga 3 sano waayo 3 sano ka hor soo baxay uu tagay caasimaddu aaday sharciga waa ka cishta sax waa ka cishte isagii kadib wax wada hadal kula furay waa wada hadalnay hay asaga markaad fiiriso dabeecadiisa manin la saxro og yahay manin xanuunsanayo og yahay مثلا nin oo kibir iyo oo just iyo macnaha dhaqankiisa ragga Soomaalida kala kuwa kacay oo waa dantaada ka gaartay oo kale kaaga tagay oo maxaa ninkan maxaa ka fahamtay marka qiimis ninkan dhaqanka Soomaalida marka la fiiriyo
marka aan subaxa oo idhaayo cunuga waa qaadana anaa haynayo anigaa diidanay calashaan in dhibkaas ii geysdan cunugii kaa qaadana baqdin ay gashay laakiin marka hadalkiisa loo fiiriyo inta cunug gaalkaa qaadan lahaa hooyadiisna saa noqotay cunugaaga adi heesaa gashay ma fahmi ninkaan fiiri odayaal baa u taga fiiri ninka odayaal baa u taga habargidira waxaa la yidhi gurigan waa laisku celinaa adiga waa aqbashay isaga wuu diiday ninkan maxaa kaaga baxa micnaha ma nin iska dantaada gaarto odayaashii way soo waceen waxay dhaheen gurigan gacan saddexaad inay ku jirtaa u maleynayna waa ku daalnay 3 maraan la hadalnay qofkaan qof micnaa de meelaan u qaadnaa la'nahay marka adigu maskaxdaada waa taqaana dumarku waa aqaana ninkan waa gabadhaas la dhiilgareey oo inta maanta sharci la'aan kugu dhici lahayd haddaa cunug ku qaadanaysa ama ayada ku qaadanaysa la dhiilgaree dhimashaan kaxigaa uu taagan yahay qoftaas aniga ma hoos fariisanaayo marka adi maxaa fahamta marka ninkaan muu ficran yahay ninkaan muu kibir baa wixiis qofka ani qofiyo ma ila ahan qof dantiis baabi'inaayo qofiyo ma ila ahan adi laakiin maxaa ka fahamta arba inaa ogaano adigu markii hadda anigaan ku yidhaa jaajkaray adiga qaadii baa tahay ninkan waxaa leed qof iska xanuunsanaya weeye wuxuu samaynaya kibirka ma aha inuu isku filnaado rabo aniga iga madax banaanaado banaankaasna ku dhaco dee inuu ani igu danaystay oo farfoodeed oo la-een calashaan oo dantiisa aqoonina ani aaminsanahay kama aragti qof xanuunsanaya maya xanuun qof maskaxda ka xanuunsan inuu sixri waxaas ani ma u malaynayay bas maxaa laga sixrayaa naagaha aan ka hadlaayo maba aqoon ninkan 3 bilood gudoodba ku baxaybo xilli lagu sixro ama meel lagula kulmo ma jirin horta daahirow gabadhan magaalada degantaa ku sheegaya daahir hal mar dhegeyso gabadhan waxay degantaa magaalada dhahay Shiin oo dalka Norway ku taalo gabar cadaado in adeertay haddaniyo annagaba naaga waa keena Norway meel walba waa keena ila adeernaayihi waa naga aamu sortar adduunku waxa uu necba qofna annagaba waa keena war ani horta isku keema taalin aniga ninkan sidaa ku keenay qof bida aadan oo aniga naag Soomaaliya sheekada anaa watay ana waxaan ka yaab Soomaalidiina qofkan iyo aniga anaa soo saaray waxa meeshan ku jiray aniga waxa la ani qof miskay barbar dhigi karo afiri adoo iska shaqeysanayo fiir daahir adoo iska shaqeysanayo shaqo iska ana ugu waxay soo martay dhibka ay ka martay ninka ana biilkay direysay anaga habeenka kala duwanahay dadka qaar ayagoo iska shaqeysanayo guri iska degan nolol iska jireen isbaranayaan oo Afrika joogo warqadiye qaadayaan way u dacwanaan way keenayaan ani shaqo noocaas ma ahayn shaqadaba inaan raadiyo oon shaqeeyo oon kaco asaga igu kalifay ani waa iska fadhiyay gurigayga iska joogay ilmahayga iska haystay wado walbo oo micnaha hadii aan ku keeni kara u maray dee lacag noqoto haddii mataqaanaa xoogayga noqoto haddii shaqo la yidhaho 40